ciidamada amniga Puntland PSF ayaa xoojiyay dadaalada lagu horumarinayo dib u dhiska goobaha waxbarasho waxaana muddooyinkii la soo dhaafay ay qalabeen iyo dib u dayactir ku sameeyeen iskuulo ku yaala deegaano dhaca gobolada Bari, Karkaar, Sanaag, Mudug iyo kuwa kale. ciidamadan oo qorshahoodu uu yahay sidii ubadka ku nool deegaanada fogfog iyo kuwa hoos yimaada degmooyinka Puntland ay u heli lahaayeen goobo waxbarasho nadiif ah si ubadka ay ugu dhiiradaan barashada tacliinta ayaa ajiibay baaq ugu yimid maamulka iskuulka Hudda oo ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Carmo ee gobolka Bari ayagoo ka duulaya codsiga maamulka iskuulka oo ah inay helaan dugsi waxbarasho oo dhameystiran ay gaarsiiyeen agab loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda iskuulkan. sida uu sheegay maamulaha iskuulkan hore ardayda wax ka barta iskuulka Hudda ma aysan haysan agab waxbarasho oo ku filan taasina waxa ay sababtay in ardayda qaar ay fadhiistaan dhulka balse maamulahan ayaa sheegaya in haatan ardayda ay haystaan agab waxbarasho oo dhameystiran maadaama codsigii ay hore ugu gudbiyeen uu ajiibay agaasimaha guud ciidamada PSF General Asad Usman Cabdullaahi. General Asad oo maanta dugsiga hoose dhexe ee Al-Hudda ee degmada Carmo soo gaarsiiyay in uu janafuna soo gaarsiiyay 30 kursi iyo 30 koodi miis iyo buugaag oo aanu marxaati ka nahay oo wada aragtaan biidinillaahi tacaala wax badan oo kalena waan ka rajaynaynaa wax horeyna wax badan buu geystay khayr Allah siiyo waa ku mahadsan yahay jananku. mas'uuliyiinta iyo waxgaradka degmada Carmo oo ka hadlay agabkan waxbarasho ay ciidamada PSF ay gaarsiiyeen iskuulka Hudda ee degmada Carmo ayaa u mahad celiyay agaasimaha PSF iyo ciidankiisa kuwa oo ay sheegeen inay isku xilqaameen haqabtirka adeegyada waxbarasho ee degmada. iskuulka anigu waxaan ka ahay macallin baan ka ahay maamulo ku xigeenna waa ka ahay ma sha Allah inta aad noo keenteen oo na sharafteen aad iyo aad baa u sharfantihiin. waxaan u mahad celinayaa deeqdan ay soo gaarsiisay hay'adda PSF gaar ahaan General Asad Usman Cabdullaahi dhammaan maxay tahay mahadilaahi baale waa idin mahad celinaynaa. runtii aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay soo gaadho deeqdii ay hore u ballan qaadeen ciidamada hay'adda PSF amniga Puntland oo runtii ah ciidamo ka shaqeeya amniga iyo samafalka bulshada reer Puntland aad baan uga mahad celinaynaa ninkii wadanka wax u qabtaa wax weyn buu ku fadhiyaa waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo aad baan uga mahad celinaynaa ciidanka PSF iyo generaalka sida ay baahiyaha degmada ay ugu kuurgaleen. anigu ah gudoomiyihii degmada ku xigeenkii degmada Carmo ballanqaadyo badan ayaa generaalku noo sameeyay kii u horeeyay oo ahaa inuu dugsiga keeno 25 kursi iyo 25 miis wuu ka badiyay maanta 30 ayuu ka soo dhigay 30 kursi iyo 30 miis waxa kale oo ku jira buugaag iyo qalmaan waxaan marka taliyaha oo iyo ciidankiisu iyo mas'aakiisha soo aad iyo aad u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa. oo qaabilsanaha arrimaha bulshada ciidanka PSF gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Al-Xirsi ahna agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in mar kale agab waxbarasho ay gaarsiiyaan degmada Carmo waxaana uu sheegay in ciidanka PSF horeysan oo kale agab waxbarasho ay u gaarsiiyeen goobo waxbarasho waxaana shacabka degmada Carmo uu ka dalbaday inay ciidamada amniga Puntland PSF ay kala shaqeeyaan amaanka iyo horumarada kale ay wadaan. afraad noo ah ciidanka PSF ee xoogga Puntland oo hore ugu yimi degmada Carmo mas'uuliyiinteeda kala duwan ee ugu sarsaraysa assessment ay ku sameeyeen kaabayaasha arrimaha bulshada siiba waxbarashada iskuulkan oo aad ogtihiin duruufaha ku gadaana isagoo education ahaan dadka gacanta ku hayayeen bahdi waxbarashada haddana xagga materialka ee wax lagu barto ardaydu waad bay uga dayacnaayeen qadifada lagu dhiganayay baahida aan soo aragnay baanu ka soo jawaabnay si degdeg ah sidii caadada noo ahayd Ilaahay nagu gallimay guushayadii iyo gargaarka ummadayada alxamdulillah waxaanu keenay 30 kursi iyo 30 miis iyo buugaag iyo qalimaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan ku wareejiyo gudoomiyaha degmada iyo maamulaha iyo taliyaha ciidanka. asdaad raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland boosaaso.